madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay casho sharafeed u sameeyay xildhibaanada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. munaasabadan ayaa ku saabsanayd mahadcelin, bogaadin iyo xoojinta wada shaqeyn dhexmarta laamaha fulinta iyo sharci dejinta, maadaama ay yihiin laba awoodood oo isdheelitira isla markaana kala madax bannaan. dhinaca kale, madaxweynaha ayaa isla madasha ku saxiixay miisaanad sanadeedka 2020 oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyeen. madaxweyne ku-xigeenka galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka, labada gudoomiye ku-xigeen, xildhibaanada sharafta leh, saxaafadda, howlwadeennada madaxtooyada, ciidamada amniga iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaan ka mahad celinaynaa kasoo qaybgalka nagala soo qayb gasheen xafladdan oon caawa ugu tala galnay bil kadib doorashadeennii inaan isku waraysanno, u kala warqaadanno, isugu nimaadno annagoo runtii ku kala maqnayn howlo muhiim ah. aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa aqbalaadda aad si buuxda noo aqbasheen, nagala soo qayb gasheen xafladda. waxaan ka mahad celinaynaa sidoo kale muddadii 2 bilood aheyd ee baarlamaanku jiray, howlihii aad iyo aad muhiimka u ahaa ee baarlamaanku ay qabteen. runtii waxaa baarlamaanku u shaqeeyey si la dhihi karo way ka duwan tahay howlo badan oo la soo mari jiray. muddo kooban tallaabooyinka la qaaday oo dhinacyo badan leh, sida haddaba uu sharaxay gudoomiyuhu qodob qodob u dul istaagay. waxaan leenahay baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka sharafta leh, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. baarlamaankii labaad ee galmudug runtii waxaan dhihi karnaa waa baarlamaan karti, hufnaan iyo ka go'naan inay u adeegaan bulshadooda ay ka meel taal. intaas kadib, mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, muddadii bisha ahayd sidii aan hortiinaba ka ballan qaadnay, waxaan ka shaqaynaynay howlihii galmudug ugu muhiimsanaa kuwa horyaal, oo ay ka mid ahayd dib u heshiisiinta, isu doonidda, isu jiidjiidka, isqaadashada, isu gogolgelidda, taasoo aan meel walba iyo cid walba xiriir iyo wada hadal iyo walaalnimo aan u bandhignay. xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhex wadnay, ama xaalad kastaoo jirtay waxaan ku dhex wadnay inaan mar walba muujinno wada jirka iyo wada hadalka iyo isu samarka iyo isu tanasulka galmudug u baahan tahay. mudane gudoomiye, xildhibaanada sharafta leh, shacabka galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaa muhiim ah inay ogaadaan galmudug inay soo gaartay waqtigii galmudug mid ah, hal ah, aan dhisan lahayn. mudane gudoomiye, waxaan gudageli doonaa waqtigii aan howlahii muhiimka ahaa oo shacabka galmudug naga sugayeen aan qaba lahayn oo gudageli lahayn. cabdulqaadir Afrika, dalka TV, Dhuuso Mareeb.